ma jira ruux aad jeceshahay isna aan ku jecleen ma jeceshahay in qofkaasi uu ku jeclaado haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa 5 qodob haddii aad samayso uu qofkaasi kugu jeclaan doono kow waa inaad waqti badan gelisaa ma fududa in ruux aad jecel labah ku abuurto 2 xiriiriska badan wuxuu fududeynayaa in qofkaasi aad si fudud ku soo jiidan karto 3 markii aad kool ku hadlayso sheekaduna ay tahay mid macaan waa inaad hadalkaagu ku jiraa ammaan oo qofkaasi aad ku ammaanayso 4 waa inaad ku reebtaa farxad si lagu soo xasuusto hadhow markii uu keli noqdo 5 oo ah midda ugu dambayso markii uu kuu sheego ama ay kuu sheegto in murug ay hayso waa inaad hilmaamsiisaa isla markaana aad ugu batashaa farxad si uu u dareemo jecelkaaga haddaba intaasi haddii aad samayso waxaad tahay qofka ugu nasiibka badan ee dunida waad ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir ha ilaabin inaad muuqaalkan la garayso sidoo kale la wadaagto asxaabtaada si aan u helno asxaab sida adiga oo kale fikirkaaga qaybta hoose faalada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad weyn magacu waa Maaman Cabdilkariin